barasaabka gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed ay u helinayaan mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Somaliland ayaa kormeer ku tagay degmooyinka Sabawanaag iyo Ballimataan oo dhinaca koonfureed kaga beega magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland iyo tuulooyinka hoos yimaada oo ay ka mid yihiin Diinqal, Badar Wanaag, Laba Afle, Daba Bahal, Qoton Dabo, Kaamgaas, Labi Sagaal, Libax Qowdhama, Higlada iyo deegaano kale oo tiro badan. Kormeerka barasaabka iyo waftigiisa oo qaatay muddo 48 saacadood ayaa daarnaa kurkarka xaaladda dad iyo dunya ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ee reer Somaliland ee ku nool deegaanadaasi maadaama uu lagu jiro xilli jiilaala. barasaabku intuu safarkiisa ka guda jiray waxa uu gubay isla markaana baabiyay moofooyin dhuxusha lagu shiday iyadoona dadkii jirayay dhirta qoyan isla markaana dhuxusha ka sameynayay xabsiga loo taxaabay. halkan anu imika marayna waa Laba Afle dushiisa calaamadaasi waxay muujinaysaa geedkaas imika raggii dul joogay way ka yaaceen waanu gaari weynay laakiin aabayaashood baanu u soo qabanay oo dee raalli kaga ahaayo ay reeraha ugu masruufayeen. waxa aanu calaamadda haddaad aragto waxa weeyaan macnaha waa geedkaasi inuu qoyan yahay bay sheegaysaa. geedkaa taagan iyo imika kaa dhulka yaalla markaad eegto labadu waa isku si halka laga jaray. waxaan wasaaradda iyo barasaabkaba aan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ay deegaanka u ilaalinayaan. waxaan u sheegaynaa in muxuu ahaayay tallaabo kasta la qaadayo oo laga qaadayo arrimaha deegaanka inaanu qayb ka ahaan doono haddii Ilaahay qadaro. waananu ka xunnahay in deegaankeygii ay waxaas ka socdaan. waxaan idin soo booqanay inaanu bal xaaladda dadka iyo dunyadaba aan ogaano. Raxmaan Raxiim sida aad arkaysaan halkani waa meel dhirtii qoyaneed lagu shiday. waa deegaanka degmada Sabawanaag suduwihii wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyo gudoomiyihii degmada. dhirtani waa dhirtii qoyaneed ee xooluhu daaqayeen ee harsanayeen bilicda deegaanka iyo quruxda deegaanka hagaajinaysay. waad arkaysaan geedka gudoomiyuhu uu gacanta ku hayaa waa ka uu qoyan yahay dhacaankii buu leeyahay maydhaxdii kana waa arkaysaan isna waa geed qoyan oo la gooyo aan ka soo saaray moofada. cid kastoo isku dayda inay deegaanka xaalufiso ay dhibaato u geysto hadda falkan ninkii sameeyay gacantaan ku haynaa gaadhigu saaran yahay sharciga la horgeynaya. cid kastoo isku dayda inay deegaanka dhibaatayso tallaabo sharciga waafaqsan ayaa laga qaadayaa si dadka kalena ay ugu cibro qaataan. guud ahaan gurmadka talaalka ayaan u soo baxnay anigoo ah afayeenka tiimka talaalka loo soo diray degmada Sabawanaag ahna Axmed Maxamed Xasan. waxaanu degmada gudaheeda ku talaalay 70,000 oo neef oo isugu jira riyeeyeedo. waxa kale oo aanu daweynay 35,000 oo neef oo isugu jira geel iyo ari. ayaan ku soo dhaweynaa marka aan ka hadlo xagga talaalka aad iyo aad oo firfircoon leh oo kalsooni leh oo wax qabad loo wadanimada meelnimadaasi ayaan mahad baan u haynaa u qabteen talaalka inta ay sheegayaana anigoo oon la soconin haddana warbixinta maalinba markii halkan u soo hoydaa way noo sheegayeen meel heblaayaan ka nimay lahaayeen. waa hawl aad u qiimo badan xoolaheennii oo la daweynayo oo la daryeelayo oo la xanaanaynayo. wasaaradda xanaanada xoolaha waan ku hambalyeynaa hawsha culus ee ay hayso ee qaranka u hayso mas'uuliyaddii oo ay qaybteedii qaadatay weeye. waxaanu leenahay halkaa ka sii kordhiya mudana gudoomiye. waad dhegeysanaysaa warbixintii afayeenka tiimkan. xoolo fara badan ayaa ku nool degmada Sabawanaag dhammaan way wada mareen 2 bilood bay ka shaqeynayeen. 2 tiim bay haayeen tiim adigu isbedelay bay haayeen. markaa muddo 2 bilood bay ka shaqeynayeen. muddada kooban ayaa u hadhay xoolihii sidaasay ku wada mareen. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida qiimaha iyo sharafta badan aad noo soo dhaweyseen. tiimkan wasaaradda xanaanada xoolaha ka socda oo muddo idinla joogay oo ka shaqeynaya talaalka xoolaha iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. runtii waa shaqadii qaranka loo hayay oo ay u hagar baxeen. dowladda Somaliland ee uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Bixi Cabdi waxay diyaar u tahay in la daryeelo dadweynaha reer miyiga iyo xoolahoodaba. sidoo kale waftiga uu hogaaminayay barasaabka gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed waxay barnaamij jeena ka hirgeliyeen dhakhtarka degmada Sabawanaag. ugu dambeyntii gudoomiyaha Jaamac Xaaji Axmed waxa uu dhagax dhigay saldhigga magaalada Labi Sagaal iyo sidoo kale saldhigga tuulada Qoton Dabo hore dadka deegaanka ay dhisteen isla markaana ka qabyoobay. barasaabku dadka deegaanka Qoton Dabo waxa uu ballan qaaday in dhammaystirayo saldhiggaasi qabyoobay. nimanka waxaan joognaa magaalada Qoton Dabo ee degmada Sabawanaag ka tirsan. heer tuulaheedii sidoo hadlayay waa arkayseen
waxaanu kasii joognaa saldhig qabyo ah ama rug boolis oo qabyo ah oo ay dadka deegaanku dhisteen oo ay tabarucaad iyagu ay iska ururiyeen miyiga magaalo ay iskugu tageen ay ka dhisteen wuu ka qabyoobay waxaan ugu yimi markaa inaanu halkaa la ogaano xaaladda inaanu la ogaano ayaanu ugu nimi wixii aanu kala qaban karna degmo ahaan inaanu kala qaban karno waa inaanu kala qabanno waa ballan qaadayna insha allahu odhan maayo dee way mahadsan yihiin mar hadday rugtii booliiska amniga u qaabilsanayd ay reer qotan inay samaystaan waayo deegaan ballaadhan oo dad badan dhibaatada dacwadahoodu ay na soo gaadhayeen waxaanan ku rajaynayaa in dee ciidan loo heli doono marka ay dhammaystiranto yaa oon taliyayaashayda iyo cidday qusaysaba kala xidhiidhi doono waxa ugu weynay saldhigga loo abaabulay inuu yahay dadka dhirta gumaada aad baan ugu faraxsannahay haddaanu nahay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga annaga laftigeegu waxaanu kaga qayb qaadanaba waanu kaga qayb qaadan doonaa haddaan horta intaa beeroo dhirayno iyada lafteedu waa noo bari bismillaahi raxmaan raxiim wafdiga ballaadhana noo yimi oo qalbi furan baanu kusoo dhaweynaynaa madaxda dalka ee kala noocyada haddaanu nahay deegaanka waxa weeye hawshaa naga qabyada ah iyo qaar kaloo iyaguna weli sii qabya oo jira oo mar lala dhagax dhigay oo jira intaba waxaanu uga cabanaynaa tii aanu isku daynay halkaasay nagaga biyabeesha horta waxaanu la labalnagudoonnaba halkaasay nagaga biyabeesha dee dowladda iyadaanu waxaanu ka codsanaynaa waxaa noo hadhay iyo wixii ay noogu dari kartaba ka kala qabyada ah inay nala qabato ay naga xil qaaday nagala wareegtay sidaa shacabkii baanu nahay itaalkayagaa intaa noqday dadku markay wax qabsadaan ayaa wax lala qabtaa waxaan idinka mahadnaqayaa sida qiimaha badan ee deegaankani wax u qabsaday odayaashiisii iyo waayeelkiisii iyo ganacsatadiisii magaaladu ay ugu kaceen waxaad noo sheegteen MCH-ka iminka shaqaynaya in deegaanku dhisay maanta waa kaa shaqaynaya oo nafaqayntii dhallaanka iyo hooyadu ay idiin taallo deegaanka oo dhanna looga adeegayo waa guul rugtan aad dhisateen ee booliiska iyadana tacab badan baad geliseen tacab badan baa halkan ka muuqda waa dadaasheen waanu idinka mahadnaqaynaa in la idinka mahadnaqana waa mudantiin annagana waxa waajib nagu ah waxaad qabateen waxa ka dhiman inaanu dhammaystiro waa waajib dowladda Soomaaliland oo hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ka go'an inay dadka deegaanada wax qabsaday in wax lala qabto inaanu dhiirigelinno dadweynaha inaanu isgarab taagno wax qabadka dadweynaha runtii tacab badan baa halkan geliseen ma doonayno inaan niyad jabtaan oo marka halkaas soo gaarsiiseen dabadeedna tacabkiinu khasaaro waxaan maanta idin ballan qaadayaa inaan tacabkiinu khasaaroobin inaanu dhammaystirayno in insha Allah tacaala rugtan ay noqon doonto mid shaqaysa sanadkan injineerka dhisaya waxaan anigu imika amrayaa 2,000 oo bulukeeda inuu imika sameeyo oo geedka lagu soo xidho lacagtooda anigu aan bixiyo gudoomiyaha degmadu waa kan dhinac taagan isaguna uu ka qayb qaadanaya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guuto sareeyo gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan isagana waanu gaarsiinaynaa warkiina si isaguna runtii uu jecel yahay in magaalada waa magaalo qadiimi ah runtii oo deegaanadii qadiimiga ahaa maaha tuulooyinka cusub ay kala sameeyay waa magaalada Qoton daba waa magaalo qadiimi ah oo runtii deegaankii taariikhda badan lahaaya taliyuhu wuxuu ku tala jiraa in saldhigyo iyo rugo badan laga dhiso dalka Soomaaliland guud ahaan gobolkan Maroodijeex aad u ballaaran degmada Sabawanaagna waa degmooyinka gobolka ugu ballaaran isagana warka waanu gaarsiinaynaa rugtan insha Allah waxaanu idin ballan qaadaynaa Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala aanu la kaashanay rugtan inay sanadkan shaqayso oo taliyaha ciidankuna uu qalabayntii iyo ciidankii ka shaqayn lahaa hadii Ilaahay ka dhigo isaguna uu ka hawl galo inta dhimanna la dhameystiro tacabkiina khasaarayn mayno waa dadaasheen waanu idin mahadnaqaynaa aad iyo aadna waa mahadsantiin isku soo wada duuba barasaabka gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed ayaa noqonaya barasaabkii ugu horeeyay deegaanada safar noocan oo kala ku taga waa Ibraahim Cabdiraxmaan Ibraahim Joker telefishinka Badda Cas Hargeysa.